السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وحن جعلها وح قرحسن إنه وحجعل وح قرحسن يكون راحيستان عرب وحجعل وح معانا أول دميو وح والبا قرحسن نفتح جعل لكن إلهي محج عليه إنه قلبك أقول نظيف أو نقضاء أو قف مسلم ولا لك يا آدم وحبا أقاري حداد ربط إناد جاد هرمر عفي قف كست أو وح قد حمرين أم وحدة حمرين waxay dhahaan culimada qaar ma rabtaa qofka walaalka ee qalbiga mar walba ku soo laalaabanaya inaad hilmaanto hadii jawaabtaadu ha tahay culimadu waxay leeyihiin u ducee mar walba bil xaqiiq waxa jira walaalo badan oo dad badan ay dhibaato dhex martay laakiin markay u duceeyeen ilaahu hebel u dambi dhaaf ilaahu hebelay u dambi dhaaf ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda xiqdiga iyo xasadka uu ka saaray haddaad rabto inaad farxad ku seexato noloshana ku macaanaato ku dhadhanto qiimo ku yeelato cafi walaalkaaga ay waxay dhex mareen ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ku cafinaya noloshana way ku macaanaan irsaaqadan waasac bay ku noqonaysaa dad fara badan oo horumar gaari la mar walba ku faya mar walba ciriiri iyo murug ku jiro qalbigooda xooga xiqdiga ku qufulaya xooga xiqdiga ku laaban yahay ka tirtir sida marka ilmaha yarka uu farbaranaya qalinka markuu buuga oo يعني ميل كميدا او خلد wax ugu qora ama meel kamida wax ugu halaabay sida looga tirtir qalbigaaga xumaanta wax yar qoraysa wuxuu ku hilmaamay wuxuu ku halaabay ama maartay khadi ay suxun kaaga dhacday qoraalkii aad qoraysay ka waran waa wax yar aad qoraysay ka waran qalbigaaga meesan ka haboon inaad isaga tirtirto oo nadiif ka dhigto maxaa yeelay wax walba nadiifa waxa ku soo hirta wax kaste oo qurux iyo macaan raadinayo haddaad rabto inuu qalbigaagu macaanka diinta uu raadsado ku dhandhansado indhahaaguna ilaahay subhanahu wa ta'ala ay wuxuu jecel yahay ay qabtaan tirtil qalbigaaga cafi walaalkaaga muslimka